dhalinyaro ku soo dhawaada projectkeena maanta waan ku dhisi doonno simple calculator project. Dhammaadka muuqaalkan waxaad fahmi doontaa sida loo isticmaalo functions kala duwan, conditional statement sida if, elif iyo else. Sidoo kale waxaan ku siin doonaa exercise aad isku dayi karto inaad features cusub ku soo dari karto projectiga. Ilaa soo cilaa dhammaadka muuqaalkan si wax badan u fahanto. Okay, ugu horreyn waxaanu sameynaynaa inaynu qeexno function. haddii aad hor u aqoon function description-ka waxa yaala muuqaal faahfaahsan oo aan ku sharaxnay. Okay, functionskani waa kuwa aynu adeegsan doono xisaabinta. aynu ka bilowno r function oo parameterka uu qaadanaya uu yahay a iyo b. waxa uu soo celinayaana ay tahay a oo lagu daray b. ka labaadna waa subtract oo isna qaadanaya parameter a iyo b ah soo celinaya a oo laga jiray b. waxa ku xigseena multiply oo isna soo celinaya a times b. haddaba division-ka markaynu samayno isku qaybinta waxaynu ku sii xidhaynaa shuruud ah in haddii nambarka hooseynaya uu noqdo 0 in aan la aqbalin oo soo celiyo. marka waxaan odhanaynaa if haddii b oo ah nambarka hooseynaya uu la mid noqdo 0 return waxaa soo celisaa 0 waxba looma qaybin karo. Okay, haddii kale uu nambar sax yahayna return waxaa soo celisaa a loo qaybiyey b. Okay, intaas misla fahanay. kadib aynu isna qeexno mainkii application-ka. define main. ugu horreyn print ku soo dhawow xisaabiye. kadibna aynu u sheegno qofka isticmaalaya inuu doorto number sida 1 oo isku geyn ah, 2 oo kala goyn ah, 3 oo isku dhufasho ama multiplication ah, 4 oo isku qaybin ah. Okay, intaas kadib while true oo waxaanu sameynaa infinite loop oo ah loop aan joogsamayn ilaa aynu break samayno. Okay, doorasho oo ah variable aan ku keyn doono doorashada qofka isticmaalaya sameynayo. input dooro mid ka mid ah nambarada 1 2 3 iyo 4. kadib haddii if doorasho in 1 2 3 4 haddii doorasho qofku sameynay intaas mid ka mid ah tahay kadib waxaan try numberka koowaad oo number 1 ah float oo yani hadduu geliyo qofku number point ah inaan error loo soo saarin ayaan ka dhigaynaa float input geli numberka koowaad. kadibna numberka labaad ayaan isagana sameynaynaa geli numberka labaad except value error يعني haddii si qofku geliyo xarfo aan error loogu soo saarin ayaan condition ugu xidhaynaa. kadibna print fadlan geli number sax ah continue. haddaba doorashooyinka qofku sameynayay aynu halkan ku qeexno. if haddii doorashadu ay la mid noqoto 1 print waxaa soo daabacaynaa formatted string maxsuulku waa add oo functionkii hore soo qeexnay ah oo parameterkiisa hadda waxaan ka dhigaynaa numberka koowaad iyo numberka labaad oo a iyo b placeholders ay noo ahaayeen oo meesha noo haynayeen. kadib labada isticmaalayna ee isku geenayna waa number koowaad iyo numberka labaad. kadib elif haddii kale oo choice ku la mid noqdo 2 print waxaa soo daabacaysaa formatted string maxsuulku waa kala jar numberka koowaad iyo numberka labaad. elif haddii kale oo choice ku la mid noqdo 3 print maxsuulku waa multiply isku dhufo number koowaad iyo numberka labaad. elif haddii kale oo uu yahay number 4 maxsuulku waa labadaas la isku qaybiyey. Okay, kadibna else haddii kale oo inta mid aan dooran oo wax kala doorto aan soo daawacaynaa fadlan dooro mid ka mid ah optionska. bes intaas ay ku yahay projectigeena. kadib aan isku daynaa run garayno aynu soo kicino. waa kaas caadi ay u shaqeynayaan. haddaba waxaa jira hal meel oo koodhkeena dib ku haynaysa. halkaasna waxa weeye in qof marka uu laba number isku geeyo aanu joogsamayn uu mar labaad soo celinayo. haddaba waxaan rabaa inaad ku soo dartaan hal feature. featurekaasina waa in qofka la weydiiyo inuu rabo inuu isticmaalo application-ka inuu halkaas ku joojiso oo kaliya labada number rabay inuu soo geeyo ama kala jaro aan wax kala rabin. haddii uu rabo inuu wax kale isku sii geeyo waa inuu qoraa si loo sii wado. haddii kale waa inuu qoraa maya si halka lagu joojiyo application-ka. waxaad nagu soo gudbin kartaan Telegram-keena oo yaala qaybta description-ka. feature-ka ku soo dara. waxaan rajeynayaa si fiican u fahanteen. ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto lana wadaagta asxaabtaada si wax badan uga faa'iidaystaan projectigan oo ah mid ka mid ah projectyada ugu muhiimsan. mahadsanid.